Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Somali Technology. Haddaba maanta muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa qaabka aad ula soo degi lahayd fiidiyoo kaste oo ku jira baraha bulshada, hadday noqoto Facebook, Messenger iyo WhatsApp. Haddaba casharka kan ka horreeyay waxaan si fiican ugu sharaxay qaabkii aad ula soo degi lahayd fiidiyoyada iyo muuqaalada ku jira YouTube. Hadduu ku dhaafay waxaad ka heli gadhaa channelkeena Somali Technology. Haddaba let's start. Okay, casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay saddex qaybood. Okay, fiidiyoyo aan kala soo degno Facebook iyo fiidiyoyo aan kala soo degno statuska Messengerka iyo WhatsAppka. iyo qaybta saddexaad oo ah fiidiyoyo aan la soo degayno inaan u bedelno dhageysi fiidiyoyo maqal ah. Okay, let's start. Okay, waxaan ka bilaabanaa Facebook. Haddaan u baahanahay inaan kala soo dego fiidiyoyada iyo muuqaalada Facebook jira, waxaan u baahanahay applications waxaa loo yaqaanaa Facebook downloader. Okay, let's go to Play Store. Play Store ayaan tegaynaa. dabeed waxaa ku qoraysaa Facebook downloader or Facebook video downloader. Okay, dabeed waxaad dooranaysaa midkan ay ku qoran tahay F2. waa kala fiican yihiin, application aad ay u fara badan yihiin, laakiin midka ugu fiican waa midkan ay ku qoran tahay F2. Okay, kaas ayaa la soo degaysaa. dabeed waa furaysaa markuu kuu soo download gareysmo. hadda aniga hore u soo download gareystay. Okay, markaa fudid soo aragtaan waa saddex qaybood. qaybta koowaad waxa weeyaan Facebook, inaad Facebookaaga halkan ka gashid. Facebookaaga inaad application aad ka gashid iyo inaad URL-ka intaad soo copy gareysay videoga URL-kiisa, dabeed URL-ka halka ku paste gareyso. Okay, downloadna wixii aad download gareysay ayaa halka ku soo galaya folderkaas. Okay, marka hadda Facebook inuu ma gelayo, laakiin URL-ka ayaa soo download gareysanaya. dabeed halkaas ayaan ku paste gareynaya URL-kayga. URL-ka soo download gareysto. So let me go to my Facebook account. So Facebook ayaan furayaa. waxaan tagayaa qaybta fiidiyoyada ayaan tagayaa. Okay, tusaale ahaan videogan ayaan rabaa inaan soo download gareysto. Any video you like it. Okay, videoga ayaa ku dhufanaysaa. dabeed markaa video ku dhufatid saddexdaas dhibcood oo kor saaran ayaad ku dhufanaysaa. dabeed waxaad dooranaysaa copy the link hoos. Okay, markaa linkiga soo copy gareeyo waxaan ku laabanayaa applicationkii. meeshaas URL ku qoran tahay ayaan tagayaa. dabeed meeshan ayaa hoos riixaya wax yar. linkiga ayaan ku paste gareynayaa. Paste the link. Okay, markaa linkiga paste gareeyo waxaan ku dhufanayaa download. videoga ayuu raadinayaa, wuu soo helayaa. sidaas ayuu videoga iigu soo dejinayaa. mobilkayga ayuu videoga soo gelayaa. Okay, so markuu videoga soo helo wuxuu siinayaa two option, inaan daawado iyo inaan download gareysto. haddii aan download ku dhufto videoga saas ayuu iigu soo gelayaa taleefankayga. Okay, download ayuu tagayaa. Okay, markaa videoga soo download gareystid taleefankaaga waxaad tagaysaa file, waxaad tagaysaa file manager ayaa tagaysaa all files, then waxaad raadinaysaa Facebook downloader. Okay, videoga soo download gareysid folderkaas ayay gelayaan Facebook downloader. marka halkaas ayaa ka helaysaa. Okay, next step waxa weeyaan sidii fiidiyoyada ku jira Messengerka aan ula soo degi lahaa. all videos in Messenger statuska weeyaan. Okay, asna waxaan u baahanahay application. Google Play Store ayaan tagayaa. dabeed waxaan ku qorayaa save history for Facebook stories. Okay, marka way taxmayaan. dabeed waxaan dooranayaa midda ugu koreysa. Okay, already inuu waa soo download gareysay, laakiin adigu waa download gareysanaysaa. Okay, marka kuu dego open ayaa odhanaysaa. Okay, marka kuu furmo dabeed waxaad ku dhufanaysaa log in with Facebook. dabeed halkaas Facebook aad gelinaysaa. Okay, marka kan wuxuu ku tusayaa only statuska ayuu ku tusayaa. Okay, marka kuu furmo waxaad arkaysaa statusyada lasoo dhigay. baa arkaysaa, ma garata asxaabta ay soo dhigeen. tusaale ahaan marka aragtid status download gareysid asaga ayaa ku dhufanaysaa statuska. marka ku dhufatidna calaamadda download ayaa ku dhufanaysaa hoose. Okay, sidaas ayuu kuugu soo degayaa statuska. galleryga ayuu lagu save gareynayaa. marka sidaas ayaa statuska Messengerkana si fudud aad ula soo degi kartaa adoo isticmaalaya story saver for Facebook. Okay, WhatsApp aanu nimaano. si aad ula soo degtid statuska la soo dhigo WhatsAppka, laba hab ayaa samayn kartaa. inaad isticmaasho application status saver iyo inaad isticmaashid application la'aan. haddaba labada hab waa idin tusiyaa. let's go to WhatsAppka ayaan tegaynaa haddeer. Okay, statuska ayaa rabaa inaan la soo dego. Okay, WhatsAppka wuxuu ku kaydiyaa xogta ama daatada inside your phone, laakiin adigu waa lagaa qariyay oo hide ayaa lagaa saaray.
Okay, let's go to our files. Aan tagno bal file manager-ka aan tagno. File manager ayaan tagayaa. Okay, markaan file manager tago all files ayaan tagayaa. dabeed saddex dhood oo kor saaran ayaan ku dhufanayaa. dabeed show ayaan ku dhufanayaa show. Okay, meeshaan waxay tigtu waxay saaran tahay hidden. Okay, show files ayaan oranaya. Show hidden files. So faylal kasto okay, marka hadda faylal kasto taleefanka ku qarsoonaa hadda waa la i tusiyaa, waan u madax banaanahay. balse si aan faylashan u isticmaalo waa in calaamada dhoodka ee gadaal laga raaciyay aan ka qaado. Okay, WhatsApp ayaan raadinaa. WhatsApp ayaan tagaynaa. WhatsApp markaan tago dabeed media ayaan sii dooranayaa. status soo maartid calaamad dhood ayaa gadaal laga raaciyay. calaamada dhoodka waxay ka micno tahay in statuska waxa lagu save gareeyo ee is taleefanka soo galeyn, laakiin xogtan waxa lagu kaydinaa taleefanka dhexdiisa, laakiin anigu ma arki karo sababta dhood ayaa gadaal laga raaciyay. si aan u soo download karo all statuska waa inaan calaamad xoogaa xajiyo hoos riixaa, dabeed aan aan ku dhufto rename aan dhahaa, dabeed aan dhoodta yarta aan ka qaado. meesha yarta dhoodta ay ku qoran tahay aan dhoodta aan ka qaado. So markaan dhoodta ka qaado wax kastoo lagu save gareeyay, wax kastoo ku save gareysan folderkan si toos ayay taleefankayga soo gelayaan oo gallery-ga ayay soo gelayaan. dabeed caad ayaan arkayaa. marka anoo aan soo download gareysan statuska oo soo dhigo WhatsApp-ka hal mar ayay kulligood ii soo wada gelayaan. hal mar ayay kulligood ii soo wada gelayaan taleefankayga. Okay, so status is ready to use. Now I can use this status folder. Okay, marka haddeer wax kastoo statuska ku jiray, wax kastoo la soo dhigay statuska WhatsApp-ka marka calaamada aan ka qaado gallery-ga ayay si toos u soo gelayaan. Okay, habka labaad waxa weeyaan sababtoo habkan wuxuu dhan way soo wada gelayaan, choice ma lihid. laakiin habka labaad application ayaa isticmaalaysaa, choice ayaa leedahay. waxaad u baahantahay bas ayaa soo download waxaad u baahnayna waad ka tegaysaa. Okay, haddaba applicationkaas muxuu yahay? Google Play Store-ka aan tagno, dabeed halkaa waxa ku qodhaa WhatsApp starter saver. Okay, kan ayaa isticmaalanaa. Okay, hore ayaa usoo download gareysay, aniga hore ayuu igu jiraa, adigana waa download gareysanaysaa. Okay, aan furno. markaa fudhid directly WhatsApp ayuu kuu qaadaya. Okay, images waa sawirada, videos waa videoska, gallery-na waa wixii aad download gareysatay oo gallery-ga ku gelaya. Okay, marka aad u baahantahay inaad image download gareysato, image-ka ayaa ku dhufanaysaa, dabeed image-ka la soo dhigo dhan baa arkaysaa. video haddii u baahantahay video ayaa ku dhufanaysaa, dabeed video la soo dhigo dhan ayaa arkaysaa. Okay, marka u baahantahay inaad download gareysatid waad ku dhufanaysaa, dabeed calaamada download oo hoos ku qoran ayaad ku dhufanaysaa. sidaas ayay kuugu soo degayaan muuqaal kasta iyo sawir kastaba. Okay, maanta intaas ayaan ku joojinaynaa kaaga. muuqaalka xiga waxaan kugula wadaagayaa qaabkii aad ula soo degi lahayd Facebook muuqaaladiisa adoo isticmaalaya laptop-kaaga ama desktop-kaaga. Okay, Somali Technology wuu hel ka dhigo maxaa yeelay waxay kula wadaagaysaa fiidiyoyo xiiso badan. Somali Technology waxay kula wadaagaysaa fiidiyoyo ku saabsan technology. So subscribe garee haddaad hore u subscribe gareyn, maxaa yeelay fiidiyoyo aan kula wadaagino waa kuwo markaas adiga ku anfacaya, waad ka faa'iideysanaysid. si aad nooga faa'iidid waa inaad member naga noqotaa oo channelkeena subscribe aad dhahdaa. Somali Technology waa is for you. Okay, assalamu calaykum.